soo kac adigoo xogogaala waa maalinimo Isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 22-ka bisha 6 2026 qodobada qaybtan aan idinkugu hayna waxaa kamid ah kadib markii Trump uu sheegay in madaxweynaha Suuriya Ahmed al-Sharaa uu kala shaqeynayo arrimaha Lubnaan waxaa soo baxay Sharaa oo asigana ka jawaabay arrintaas. Marka hore saaxiibada aan jecelnahay waxaan idinka codsanaynaa haddii uu yahay markaadii kugu horeysay ee barnaamijkan uu ka soo horbaxo marka hore subscribe oo rukumo meel fogna gaarsii si dad kale ay u daawadaan. Aynu ku horeynaa kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka codsaday madaxweynaha Suuriya Ahmed al-Sharaa in uu kala shaqeeyo arrimaha Lubnaan waxaa soo baxday Sharaa in uu leeyahay xaaladda maanta ka jirta Lubnaan waxa ay u baahan tahay xalal wada jir ah waxaana suurtagal ah ayuu yiri in Suuriya laga kaashado raadinta waddo amni oo lagu gaaro xal. Waxa uu intaa ku daray taa macnaheedu ma aha ayuu yiri dagaal mana ah in dib loogu laabto xilligii nidaamkii hore ee Suuriya uu faragelinta iyo go'aan ku haynta ku lahaa Lubnaan. Sidoo kale waxa uu sheegay waxaan ula jeedaa ayuu yiri waa in la taageero dowladda Lubnaan lana xoojiyo hay'adaha qaranka lana abuuro xiriiro iyo wadahadalo u dhaxeeya Xisbullah siyaasiyiinta iyo dhammaan xoogagga saameynta ku leh Lubnaan oo ay ku jiraan Xisbullah. Sidoo kalena waxa uu sheegay si loo helo ayuu yiri xal amni oo dhammaan dhinacyadu ay aqbaleen. Haddii aynu fiirino warka xooggan ee Trump ka soo baxay, Trump oo la hadlay Fox News ayaa si adag u weeraray Israel isaga oo ku sheegay kuwo aan awood u lahayn in ay xal u helaan dagaalka ay kula jiraan Xisbullah. Waxa uu yiri Israel waan ka niyadjabiyay wax tallaabo ahna kama qaadi karaan ayuu yiri Lubnaan iyagoo aan dhismayaal burburin. Wuxuu intaa ku daray waxaan ku dhawahay ayuu yiri inaan arrintan Xisbullah u daayo Suuriya isla markaana aan awood dheeraad ah siiyo madaxweynaha Suuriya Ahmed al-Sharaa.